أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. anigoo ah guddoomiyaha guud ee qurbajoogta Beelowe Sheekh Muuse Rashiid Cabdullaahi Gaas, maanta oo ay tahay 16 bishii 7 2020 waxaan halkan doonayaa inaan ku duubo baaq iyo raygayga iyo aragtidayda gaaban ee ku aadan saami qaybsigan baraha bulshada inta badan kaga hadlayaan madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka iyo doorashada la leeyahay waxay ka qabsoomaysaa Somaliland ee dowladaha hoose iyo baarlamaanka. haddaan ku horeeyo saami qaybsiga iyo koonto mala awaala oo laga sheekaynayo, horta waxaan u sheegayaa bulshada reer Sheekh Muuse caam ahaan waxaanu nahay qaran, waxaanu nahay bulsho ballaaran oo magac iyo miisaanba leh. waxaad odhan lahaa weel amba kaloodhad wax laydinku rido waxaa ka qurux badan idinkoo ismuujiya cududiinna iyo farahiinna oo aydaan waqti badan ku lumin koontahana la siiya iyo kaloodhad meel halanoo dhiga iyo haddiiba kuu roon yahay ma garanaysaaye meel wax naloogu cayimay annagu aan isosoos ma ogtahay qofka koonto kusoo baxay inaanu qiimamo baarlamaanka iyo degaanka kusoo baxa ku yeelanayn, sababtoo ah koontaabad ku timid oo awoodba ma liido. markaa sharaf haddii meel lagu noolaanayna sharafa loogu noolaado, haddii wax loo helayo sharaf ha lagu helo, haddii wax la waayana sharaf ha lagu waayo. koontadaa anu waxaan odhan lahaa raygayga gaaban waa arrintu waqtidii kaga luubi lahaa oo bilayd halkaa ah naloo dhigo yaa muxsiniina intaad ka waantowdaan cududiinna iyo midnimadiinna iyo tawfiiqdiinna iyo muwaafaqadiinna intaad muujisaan ood ilaahay u noqotaan ood midowdaan 2 iyo 3 waad soo saari kartaane, tiro iyo tayaba waad leedinaysa soo saara. ta koontada taasaan ka leeyahay. tan dowladda Somaliland ee doorashadu ka dhacaysana waxaan leeyahay horta komishankan doorashooyinka ma ku jirnaa innagu xubin ma ku leenahay? maya. kuwa gobollada mas-uuliyiinta kaa xubna ma ku leenahay? maya. dee garsooraha dalkan aan ku mid noqonno waxaan Muuse Biixi iyo 3 nin ilmaadeerka ee markay doonaana islaynayo dadka mashquulinaya, markay doonaana heshiinaya oo igama qurunto igama gubato iyo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaanna mar walba isula imanaya bulshada wareerinaya. oo hadda dalka waa laydila leeyahay, taladiisaa laydila leeyahay, tashigiisaa laydila leeyahay. bal dalka wax ka siiya dadka idila lahoo beela darafyaad tidhaahdaane, annagu darafyana waanu joognaa, dhexdiinnana waanu joognaa, meel walo joogtaanna waanu joognaaye. haddaanu Beeloweynta reer Sheekh Muuse nahay waxaan leeyahay insha allahu tacaala xaq dhowr ha la muujiyo. oo horena waxaan uga dhawaajiyey dal haddii la qabto oo dee reerkii aan wax walba isku koobine waa bal intaad ilaahay u noqotaa, haddaad guddoomiyihii komishanka doorashooyinka idinku noqdo oo kii guurtidu idinku noqdo oo kii ma garanaysaaye haddeeba kuu roo yahay xisbiyadu idinka noqdaan ood wax walba idinka tihiin. waar ummadda kale ma roodhiba ma baasta ma bariisba? war cadaalad baa daddeeqda nin cadaalad waaye sidii cawdlili kala yaac. dalkan waanu leenahay oo waanu idila leenahay oo waanu ku dhalannay oo waanu ku dhaqannay oo waanu u dhimannay oo waanu u halgannay. haddaad idinku halgankii dowladdii Soomaaliya annagu halgankii xorriyadda dalkaan u soo dhimannay oon 1 iyo 2 iyo 10 nin boqolaan nin iyo kumaakum rag nagaga dhinteen. haddana insha Allah ma xustaan oo xorriyaddan mar bay dalka timid. markii ay timid 60kiina dee raggii halgamayay baanu ahayn haddaan reer Sheekh Muuse nahay, rag u dhintay baanu ahayn dalkan, wax badan u huray
waqti badan geliyey juhdi badan geliyey hadday suugaan tahay iyo hadday hiil tahay intaba markaa waxaan leeyahay bulshada ballaadhana reer sheekh muuse ee ilaahay iga beeray allaha barakeeye koontana hayeen laman ku meeraysanin kor ha looga baxo koontada ha lays abaabulo 10 degaan waad soo saari kartaan wax huwana oo wax laydinku siinayo ka waantooba wax laydinku lamaanayo ka waantooba reer walba cududiisa ayuu isku soo saaray cududiina isku soo saaray 2005 cudud baynu muujinay tawfiiq la'aan baa halkaa ka jirtay haddii maantii hal xildhibaanaad isku tagi lahaydeen iyo laba waa la soo saari lahaa tafraaruqana ha la iska daayo abaabul ha la galo dal iyo dibadba abaabul ha la galo sidii dhaqaale iyo midnimo loo keeni lahaa laakiin yaan lagu mashquulin kaloorad waxana loogu rido tayada kale Somaliland dee xeer ha jabiso oo ha ku darto dastuurkeeda 4.5 wax la yiraahdo markaasaynu amba koonto doonan lahayn xeerna kuma jira meesha waa loo simeeyay dastuurkan ay gacanta ku samaysteen inuu codaynay magaranayay 29kii shaqaalaha ban kamid ahaaba goobta iskuulka la yiraahdo iskuulka ku yaala gacalibaa xagteeda maxaa magaciisa ayaa وأمان من العذاب ونصيب aan ka qayb qaatay meesha maxay ahayd xilliga la qabanayay dastuurka loo codeynayay haddaba mooday dastuurkan inuu naasayo berigi sanduuqa kama waan qayb qaatay runtii dastuurka waxa ku qoran in dalka loo simeeyay kuma qorna koonta kuma qorna haweenkan asdhinac wadaana haweenka xuquuqdoodu way leeyihiin dowladdu hadday siinaysa haddaan siinaynin laakiin nagu reer sheekh muuse aynu nahay dad sharaf leh oo karaamo leh oo ilaahay siduu dadka u abuuray buu inoo abuuray siduu ilaahay dadka u sameeyey buu inoo sameeyey waxa ay leeyihiin baynu leenahay waxa ay diidaan baynu diidi karnaa markaa ha laga guuro ha lagana waantoobo ta koontada ah oo ha loo guntado sidii laysu soo saari lahaa ha loo guntado sidii loo midoobi lahaa ha loo guntado sidii codka been laysugu wada marin lahaa oo laba baarlamaantii iyo dhowr degaan waad soo saari kartaane oo koontadan iyo dowladdan xaafaddu iska haysata dhexe xaafadda dhexena waxaan leeyahay waa darafyada iyo dhexda waan la degnaaye xuquuqda dadka bil'aadmiga ilaaliya ilaahay maalin buu xisaabinaya maalin baa iman doonta ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba mas-uulaba wax weydiin doono marka ilaahay ha loo noqdo cadaalad baa dadka deeqda haddeeba kuu roo yahay 180 miya golaha baarlamaanku iyo 280 guursidaa miya waa 164 beesha dhexbalaha waxay leedahay boqolka iyadaa iyo 114 bay leeyihin inta kale ummadaha kalaale anagu gola guurti baaban xubin ku leenahay markaa cadaalad baa dadka deeqda oo haddaydu wax samaynaysaa wax cadaalada sameeya oo haddaydu wax hagaajinaysaa wax cadaalad dadku hagaajiyo ku haga marna gacanta hay sukaaye saarina marna hay sukaaye eryanina marna ma garanaysaay waa xisbiyadan la hadlaya anugu si caaman ula hadlaya riwaayadda laga daayay dadka iyo ummadda dalka idila leh ha laga daayo riwaayadda iyo filimka yare iminka xaban arkaya xisbiyadii mucaaridka ahaa ee muxaafid noqday oo mar walba madaxtooyada kusii socdo dee iyagaa meesha iska leelayn marnaba iyagaa mucaarida iyagaa muxaafida marka ilaah xaqa haynagu sugo waxaan kusoo meeraya hadalkayga reer sheekh muuse waxaa leeyahay ilaahay ha loo noqdo midnimada ha la xoojiyo ha la isa soo saaro billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu